knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan knn. waryaha kalamaan war baan idiin sheegayaa maanta war weligeed baa war la sheegaye gacantaabaad wax ku waddaa war dadkaan dhuuntay wax ka maqlaane dhago wax maqle ma leh war helaaba tala helaya warka dhegayso war lan war aan sugni waran ma sugaa lanku warka ku dhoorneen war ha buuqine iga dhegaysta horta dalka iyo dadkiisaba dawladdaa ka mas-uula deganaan nabadeed iyo dariiq uunku maraan iyo isbitaallo daweeyo dugsi baa la rabaaye isagoon degdegaynin waxna sii duminaynin oo dunta hayse xariirkiiyo ilayskii daminaynin qof kastaaba docdiisa ha sameeyo dadaaloo yaan dib loo noqon maanta aryaa dariiqyaal la rabaa intaad ku qaylihayso kuwii horoo naga xirxiray hana loo furo ma dhahdido war iskuullaa la rabaa intaad leedahay iskuulladii horea faraha ka bataye manhaj midaysan ha loo sameeyo maa tiraahdi timirtii horeba dabloo waaya ari jartanisan war isbitaal antiada leeta isbitaal buuhana daawada dhiidayna nii beeguhaaye toofayla tahilehay ninka bedeloy ma erto war waxaas aad sheegaysaan annagu ma rabno meel biyo laga cabaa loo baahan yahaye baraaga ha naloo qodo aan xoolaha ka shubanno war baraag intaad ku qaylinayso webigii weynay oo beeraha lagu waraabinayey ayaa duugmaya ha la qodo maatiraay aryaadhaha waxaad ad sheegaysaan inyiis ka joojisiin madaxweyne farmaajo beriga wuxuu yimid goobaha lagu dhisaayo isxilqaan istaadiyo muqdisho ma ku jiray meelaha uu madaxweynuhu soo booqday war madaxweynuhu isxilqaan ma ka qayb qaatay oo dhoobada iyo dhagaxii ma wax ka daldalay yaa ku kontaroolayahe warnimayow isilgaan inti isin latiin hilka aylisinka gaadneey war shirkii garoowe waxaa la yidhi maanta waxaa gaaray magaaladaas wafti hordhaca oo ka socda xafiiska madaxweynaha iyo midka ra'iisul wasaaraha waxaana lagu wadaa inuu shirku furmo soonqaad ka hor war madaxweynahaygii somalilan garowe wafti miyuu soo dirsaday argowdhanow jamhuuriyad iskeeda u taagan baanu nahay jamhuuriyad iskeeda u taagan ba guri jartay dawlada yaryarkaa ka darantay war ma haysaane xisbiye u badan mucaaradka dawladda ayaa war soo saaray waxayna dawladda kaga digeen inay muddo kororsi samaysato aryaa wakhtiga haddaan la kororsayn mugga ma la soo gaabihaa haddana war ma haysaane ergaga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya ayaa dawladda ka dalbaday inay u diyaargarowdo dib u soo celinta qaxootiga soomaaliyeed oo ku jira xeryaha kenya abadan warkaas waran weeli ma haaneendiroogana jidle ku hirin hemaadu waysiin haano u suban haatile sheenay waran weeli ma widay midda kale qaxootiga ma la iska soo celiha inta la dejiha waryaada dawladdu dadkii gudaha wadanka joogaysan wali isu keenine kuwa dibadda jooga miyay keeni kartaa xagaysa geynaysaa war qaramada midoobe waxay sheegaanba tana uu qaalisareedo dadkiina soo ceshada yiraahdeen maxaad ku diidaysaan oo yaa caano haya war dadka Soomaaliyeed meeluu wada joogaba waa dad ehela yaan annaga balaayana la kaga dhigana dadka naga naloo keeno waryaada dhageysta qatooya lagu mawaaree baryaha la isqandicinayo waa qaliil ayaamaadoo qayr ku soo xigiye mana quusto ruuxan qaldaha ee baqaadicin war alxamdulillah ilaahay ma hadle ma dhado haynoona nin yow war Soomaaliyeed waa la doogayaan la dacaroon aryaadaha golaha wasiiradu waxay bariga ansixiyeen la yiri xeerka doorashooyinka 2020 iyo sharciga xisbiyada siyaasadeed war dastuurka ka horeeye may dastuurka ansixiyaan horta war qowdhanow dastuurintaan la ansixin idinka ka maqana ma timaadaan maqoona xeerka ay qoreen qabyaana wax ku qaybsana maqoona xeerka ay qoreen qabyaana wax ku qaybsana warkiiskii caasha Ilyas oo gaalkacyo ka dhacay Puntland waxay tiri maalinta sabtiga meel fagaara ah oo garowa ku taala maxkamadeeda lagu qaadaya war cidda caasha Ilyas waa baqaxeenaya kiiska u dhageysanaya war iyo garasahaayeen ununa fulaayeen hoobalan eraana kiiskuna dhanga dhagansid korna waraada raana waaye naga daayeenanta calolxumadeeda war ciidamo gadoosan oo ka tirsan maamulka Puntland oo mushaar la'aan ka cabanayo ayaa waxay qabsadeen bangiga dhexe ee Boosaaso arina baasi ku dhareegan haba qabsadoon ma xume bangiga meeqa beesay kala baxeen ciidamadu warnamiyo uma siin warsaday ogoontii ciidanka militariga Soomaaliyeed oo 4
bilood mushaare oo noomogan leeyiin yaa irtimada tooyi dhoobanaayeenna adoogana kormaray walaka bitiyayhe war guddoomiyihii buuraha kabo oo xilkii iska casilay wuxuu yidhi xildhibaanada federaalka oo ka soo jeeda deegaankaas iyo kuwa koonfur galbeedaan ka shaqayn weynay warnimayo war ma haysaana waxaa la yidhi cabudu waaq wiil baa laba wiiloo isla dhalatay toorrey la dhacay mid waa dhintay midna waa dhaawac waana u baxsaday ninkii wax dilay hadda waxaana la leeyahay baxsigiisaas waxaa lagu eedaynayaa mas-uuliyiinta deegaanka warya maysiin lahaa wan toorey qaado tuu laba isla dhalatay ku hariiji tiriina dhoof miya war xaaladii degdeg ahayd ay Soomaaliland gelisay gobolka Sanaag golaha wakiiladu way ka soo hor jeesteen waana ku mudaharaadeen war xalay waxa ciyaar kooxaha Barcelona iyo Liverpool hadda waa la garaacay kooxda Liverpool 3 euro looga badiyay ilmo dhafooro hiiri madahni dhax daramankaasay wili jaba buulo ya guraayeen aryaadaha dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu isa soo dhiiba ninka al-shabaab u qaabilsanay qaraxyada hadda mar dambe la isqarxin maayo miyay yiraahdeen warnimayo nin baa abwaanguura u soo gabiyay wuxuu yiri hawl kasta qorshay leedahay qaab u gooniya khiyaanada niman qaasoo qiiliya jira qumayada seguurow ninkii qaatay baa tahay waryaarahan ragiina kalamaan maalintan idka tagay ilaa maanta baqarraxdan iyo qayladan aad ku jirteen walaga tagayli mayna nadahni adiga naftaada xaanoo ka keena abdullah qaylada adaa noo horseeda maalin kasta Allah idin siiye